waxaan ka cabanaynaa unaka waddankaayna waa kasoo barakacnay biyo xubno iyo baadan ka cabdooynaa haye marka waddankaana waa kasoo barakacnay meel yidhaha baldooskan joognaa marka waddankii biyo la-aan iyo baad la-aana ka jirto waa tahay deegaankaad kasoo barakacdeen waa deegaankee deegaanka una kasoo barakacnay waxaa ku bilaabanaa hawaal shire ludato adaboonaad eraxley diliga xaliimow dhulkaasaa kasoo barakacnay waa tahay waxaad iga warantaa dhibaatada ugu daran ee idin haysata maxay tahay dhibaatada hadda ugu daran hadda raashinka iyo biyaha haye intaasaa ugu daran marka dawladdaana sharafta leh waxaan codsanaynaa iyo aqoon-yahaniinta iyo intii wax garanayso maaragtay biyahaas iyo baadkaasaa nooga xun marka qaar aan lahadinsiiyey intaasaa na gudbinaysaa waxaa u daran meeshaan maaragtay aan ka bilaabato lulato ilaa tuwaarey raxley halahaasa maaragtay aa u daran horta biyo xumba xoolahaasi baadaba laba sac meel looga hor orahda u hayso marka baad xumaa jirto biyo xumadaasna waa jirtaa waa tahay nolosha hadda aad ku sugan tihiin ka waran nolol adiga dadkan ilaahay xaggiisa iskaga nool yihiin nolol adag oo xun ay ku nool yihiin ma jiraan marka adeegyo asaasi ah oo aad hesheen wax unuka hadda adeeg iyo waxaas wax noo keena ma arkin qof hadda ka hor adig ka ahaana unuka dacwo usoo jeesina ama ahaana wax oo abasha u jeedina ma jirto adaa una kow ah intaas waxaan u direynaa walaalahayna sharaftale dawladayna sharaftale oo wanaagsan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka kulli waxaan u direynaa dawladayna sharaftale meeshaas in la soo gaaro biyahaas oo dadka calooshada markaad la hadasho b ay leeyihin sidaa kor usoo taagayiin iyo raashinkaasa ugu darara marka ay soo gaarsiina arnayaw dhib daran aradka waa naga haystaa cuntada waa naga haystaa biyuhuma waa naga haystaa maantii meeshaan ugu soo barbaxane meeshii unaka walaalihiina marka muslimiinta inagu ag joogna hataa waxa noo gargaaraan oo hoga yar intaana walaalihiina hoga yarno waa idinka roognahay nin la dhax ma arkin laakiin rooya dhibaato aad iyo aadaan qabnaa inta meesha unaku joogna waa ku dhibaataysanahay caradaanina waa kasii daranahay biyo xumo baad xumudii joogto sidii cawada biyihii karaskooda ninkii si cawada loo gargaar oo motor loogu joogsado oo meeshii wax laga xiro wax laga karsadahay hataa malaha dhibaato aad iyo aad qabnaa marka si walaalahayna oo gaaga dawladayna gargaarkii madiinka soo sheegay xasanta maxad weyn idinka hayno idinku daran cuntada badar lama haasi galey lama haasi sokortii wax lagu gato male ilmi iyo sariir wax loo martii ma jiraan jikada shidinka aad iyo aadaan nooga dhib daran tahay waa tahay deegaanka hadda aad ku sugan tihiin bal waa deegaankee hadda deegaanka unuku hadda ku sugannahay waa baldoos oo boqorada aan ku enahay oo ku dhibaataysannaa oo ku barakaysanaa wax hadda kahor unuga dad wax walaalo dad unug wax gaarsiisa ma jirto waa noo hadal kow waana bismillahi rahmaan rahiim waa hadalka koowaad hadda lagu soo dirin oo intaasaa ugu mahadnahay una waa dhibaatoosan si xiraabtan oo bayge kale haddaanaa kasoo baxay haye hadalkayba eegoydo isaamade sihiraabdadabadi haddaansa ku bihi beeluna fadhiina daldoosaa wadankana ku bixina dhibaatooysinya ninka doran hunguriga ninka doran fileegi yaalan isku doonayeeba wal hadda ninka doran hungurigu hadna waan khalafsagna irbaad maxaashay dabni kay marwooda siiya hunguriga ninka doran una hadda waan beelabaay male siyaasi beedowli jirigilihinkiriyeego hayse yadankina saaseewa inaa 4 shan joog haddii waxa noo galaysa sheekha inta waxa noo anficaysa meel baldoos ee ku jirnaa waa mahadsan tahay meesha ku joognaa waa masaakiinta nahay iyan hadda loo diraayo hadal ma jiro meesha joognaa unuka safaran wax loo kaalmeeyaa ma jiro sheekhaada inta diin waa loo dhibaatoosan yahay masaakiinaa jooga andhoolaa iska jooga lagu alaa iska jooga nan loo kaalmeeyo hay ma jiro sheekhaada waxay nooga anfacan lahayti intaa nooga anfacan lahayti dadkaana waa loo anfacay waxaan ugu baaqaynaa maaragtay meeshaan iyo xubnihii baadara jirta ugu baaqaynaa maala hay-adaha samafalka meesha caalamka dawladayna soomaaliya sharafta leh madaxweynaha ra-iisul wasaaraha
intaasa ugu baaqaynaa ilaa intii ganacsatada intii wax garanaysa oo Soomaali intaasa ugu baaqaynaa in meeshaan biyo xumo iyo daata ma jirto. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shuba xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor.